أحمد شوقي أمير الشعراء بيت أوتريي وتويتر أمان تصور بالعلم والمال يبني الناس ملكهم لم يبنى ملك على جهل وإقلال. أف عربي كلي انتي نبضان وحن أمانا أف عربي نيقانان شاعرك حلي قاس وكهد لي أحمد شوقي 1932 intaan u malaynay xilliyadaas ayuu wuxuu ka hadlayay maxaa lagu dhisi karaa mulki ama majdi ama dowladnimo ama maxaa lagu dhisi karaa bilcilmi walmaali. maanta yaa waxaad arkaysaa dadka horumaray education and economic development ay ka hadlaan. axmed shawqi xilligaasuu ka hadlayay laakiin nasiib dara intii uu la hadlay oo anaga ka midka ahayn baan kama aanan faa'iidaysanin. marka maxaa lagu dhisaa wuxuu in macnaha cilmi iyo maalna keligiis ma imaan karaba haddii cilmi lagu maareeyo uusan jirin. in lagu dhisaayo mulki ama majdi oo aanan waxba wadamo aan lagu dhisaynin jahli iyo faqri. xilligaasuu ka hadlayay. waxaan kaloo asna rabaa inaan sheergareeyo dugsiga dhexe markaan ahaa carabiga waxaan qaadan jirnay maadooyinka shicirka ka mid ahaa aan qaadan jirnay. marka waxaan xasuustaa shaacirkan soomaaliyu ahaa laakiin af carabiyu ku tiriyey shicirka wuxuu ka warramayaa waddanka. markaasuu waddanka wuxuu ka warramayaa siduu waddanka u yahay hani hodan siduu u yahay waddanka. wuxuu ka warramayaa khayraadka waddanka ku jira. wuxuu ka sheekaynayaa inta hore baydadka hore oo dhan wuxuu ka sheekaynayaa webiyada iyo wuxuu ka sheekaynayaa barwaaqada wuxuu ka sheekaynayaa beeraha xoolaha dee waddankii ka sheekaynaya oo si uu u waday waddankii hadda uu lahaa waa hodan. wuxuu leeyahay banii watanii ina albilaada faqiiratun bifaqdi rijaali alcilmi والعلم نير وحولي بني وطني تلكيو دتكيجيو إن البلاد فقيرة ودنك يدو لها وهضن يا وحوليه وفقير لكن محو فقير كيف بفقد رجال العلم ما قبنا ذات علمي له وحوليه علمي هو نور مجدي جهلي هو مجدي مركب حيكون سيسا حتى ودنكاga hadduu khayraad badan leeyahay ama dhulka hoostiisa ku jiraan ama dhulka korkiisa yaalaan haddaadan cilmi lahayn khayraadkaagii xataa ma taqaanid aad u adeegsatid. dhankiinaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo tusaale fiicanna Holland iyo Soomaaliya lo' badan. Hollandana caanaha iyo jiiska adduun weynaha meel walbay gaarsiis lo'deennana sanadna abaaray u dhintaan caanahoodana maba la arka xamaraan joogin dhowr sano caano loo indhahayga masaarig maraaciyaan ba isticmaalayni. waxay ku tusaysaa cilmigii inuu lo'da Hollandana saas ka dhigay lo'deenniina waxba laga faa'iideynin. marka waxaan rabaa intaanan aniga dhex gelin wixii aan ka hadli lahaa idinka waxaan rabaa inaad maanta ilaa ma aha mawduuceena kama hadlayno fadliga cilmiga iyo kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa aqoonta siday wax u dhistaa. waxaan rabaa qof dhalinyarada ka mid ah oo adduunka hadda waxaa aad looga hadlaya human capital markaad maqasho maxaa kugu soo dhacay. waxaan rabaa qof nooga macnaha dhowr daqiiqa noogu soo kooba. waxaan kaloo rabaa qof kale oo asagana dhalinyarada ka mid ah wadamada adduunka wadamo way tageen waxaa laleeyahay waa intaasuu dhaqaalahooda maraya kuwana waa tabcaan $1 qofku ku noolay maalintii ama ka yar. marka inay wadamana cirka galaan wadamana tabcaan yihiin dee maxay ku xirantahay ma khayraad iyo wax dhulka hoostiisa ku jiraa mise waan aragnaa wadamo kale Singapore iyaan aragnay iyo marka waxaan rabaa dhalinyaro bal arrintaas ma rabi keligay inaan hadlo waxbarashadeena xataa waxay ku xirantahay weli
systemkii taqliidiga ahaa adduunka maanta waxbarashada waxaa waaye hadalka waa inuu xataa waa inuu laba dhinac ka socdaa marka dhalinyarada xaggiinaan kubadda u soo tuuray yacni maanta markaad adduunyada fiirisid marka simply wax inaad ogaato markaad rabteed wixii haddaa sababta aqoonin ma ogaan karteed laakiin markaad aragtid laba wadan mid waa faqiir midna waa qani war kan wuxuu faqiir ku noqday sababihiad raadin kan wuxuu qani ku noqday sababihiad raadin sidii hadda oo dhalinyaradii hadda ay noogu sharxeen oo kale marka maanta mawduuceena aqoonta iyo siday uga qayb qaadato dhisidda wadamada khaasatan annaga Soomaali ahaan dhalinyaradeennan dibadaha wax ku baratay meel walba firdhisan siday hadhowti uga qayb qaadan karaan dhismaha wadankeena marka mawduucaasaan ku dhex wareegi doonaa haddii ilaahaydna ilaa hadda waxaan isla meel dhignay aan isla ogolaanay muran uusa ka taagnayn bayska wax walba horta waa aqoon wixii horta daadan aqoonin wuxuu rabaaba ha ahaadee wax aad ka qaban kartaa iska yar xitaa khayraadaa laga hadlay okay wadama ilaahay wuxuu siiyey khayraadkaas oo dabiiciga oo ilaahay ku siiyey naftirkooda aqoontii aad ku soo saari lahayd ama aad ku horumarin lahayd haddaadan aqoonin waa adigoo aan haysanin oo kale ayay ka dhigan tahay wadamadan hadda oo laleeyahay human capitalka muxuu tare bahal yar bir yar oo 10 pound ba aan joogin yaa lagu soo qaadi adi wax yar caag bir wax sii wad soo $10 mobile kun lagaaga gaday iPhone dhag iPhone kaas waxaan laga sameeyey waa wax yar yar laakiin shay aan qiimo lahayn oo plastic ah ama bir ah in loo bedelo shay $1 lagaaga gaday waa aqoon soo ma ah haddii aqoontaas ayna jirin tay aqoontaas uusa jirin micnaha shaygaas qiimo ma lahaadeen ama 5 pound u ahaan lahaa $5 $1 u ahaan lahaa laakiin inuu noqdo teknolojiyadan maanta aan arkayno la isku dhaafa adduunyada wadamadan aanan lahayn natural resourceska dadkoodii wax bartay human resourceska human capitalka aan ka hadlayna aqoontoodii ay ka gadayaan mobile £1 lagaaga gadayaa laptop £1 lagaaga gadayaa maxaa la geliyey laptopka muxuu ku noqday £1 waa caqli bini aadan iyo skills waa aqoon iyo skills yaa la geliyey oo sidan ka dhigtay marka taas inaan isla fahamno oo dadkii wax bartay wadamadaas oo ku dadaalay ku maalgeliyey bulshadooda inay wax baraan waxbarashadii keentay in loo bedelo caag meeshaas iska yaalay in loo bedelo wax aan ku gadan karo $10,000 waxaa keenay aqoontii iyo skillskii la geliyey marka hadda adduunkana waa midda uu ku horumaray si joogto ah maxaa u socda marka adduunka annaga waxaa laga yaabaa aniga waagaan dhiganayo primary school wixii aan xifdin jiray in hadda weli loo dhigo cunuga Soomaaliya jooga annaga waxbarashadii waxbaan xifdin jirnay wax kasta waa xifdin jirnay waa kasoo bixi jirnay macallina sabuurad noo buuxin jiray waa guurin jirnay waxbarashada adduunka hadda waa isbedeshay waxyaabahan aad oo la yaabay waxaa ka mid ah micnaha haddii weli aan taaganahay aniga wixii aan dhigtay iskool markii aniga aan ku jiray iyo habkii wax la ii baraaye haddii ilmaha maanta Soomaaliya jooga loo baraayo naftirkeeda waa arrin u baahan in aad loo fiiriyo kolley meesha aad joogtaan Pakistan waa wadan waxbarashada hadda tiimkan soo abaabulay laakiin waxaan u malayn waxaa laga soo galay wadamo kala duwan wadan walba wuxuu isku dayaa inuu tatawur ku sameeyo horumar ku sameeyo wax laga bedela waxaa aad loogu mashquula habkii wax loo baran jiray sidii wax looga bedeli lahaa laakiin haddaan dhahno habkii wax loo baran jiray
iyo habkii la isu imtixaami jiray yaa weli wax loo baranayaa waxbarashadii sidee miro dhal ku noqonaysaa mathalan waxaan arkay ilaa hadda ani hadda qof weyn oo intaasoo ilmana ayay u ah oo waxbarasho ma dhammaato ilaa hadda waxbarashoan ku jiraa yacni waxaan arkay waddamadii aan soo maray waddamadii aan wax ka bartay waxyaabihii ka midka ahaa aan aad oola tacajubay waxaa ka mid ahaa annaga mathalan soomaaliya wax kastaan xifdin jirnay aniga holland markaan isbitaalkii iyo jaamacaddii aan tegey wax la xifdinayo male takhtarka daawo inuu qoro wuxuu haystaa wuu soo baxsan aniga daawada waa la igu ridaya haddaanan xifdinin meeqaa miligaraam meeqa garaam yaa qofka la siinay daawo kasta u jirta inaan xifdinaa imtixaan ku geli jirnay waxaan u imi takhaatiir waxaan la soo fariistay jaamacad takhaatiir buugga furanaya oo daawo hadday qorayaan buugga ka fiirinaya yacni waxaa lagu leeyahay maskaxda qashinkaas in laga buuxiyo looma baahna waxaa lagu leeyahay markaad ama jaamacadda ka baxayso ama specializationka ka baxayso haddaad waxaas dhan aad xifdisay 10 sano gudaheeda wax badanaa isbedelaya wax badanaa soo baxay ma wax walba ma xifdisaad u taagnaanay waxaan u malaynaa weli wadamadeena xifdiskiyaa ka jira kow arrinta kale oo aan arkay intii macnaha waa habka xataa wax loo barta ayaa qayb ka mid ah waxyaabahaan arkay waxaa ka mid ah esayaa lagu dirayaa macalinka wuxuu sharxayaa adigaa shaqada ardaygaa shaqadii badi loo dirayaa wax waa dabaqaad wax gacmaa laga qabanay wax waa lasoo raadinay research uu samaynay articlesaad journalisaad akhrinay hadday medical tahay hadday engineering tahay waxay tahayba adigaa wixii lagaa rabaa macnaha waxay ku tusaysaa hal abuur waxa hal abuurka la dhaha creativity qofka inuu yeesho systemka waxbarashada hadday ka maqan tahay hal abuurka iyo creativityga hadi waxaa soo bixi cajalado sidii annakaba waagi wax kasta waan xifdin jirnay waxaa sidii hadda imtixaanka soomaaliya loo qaadi jiray standard 8ka form 4ka waa la dhici jiray marka adduunka hadda waxaad arkaysaa hadda mathalan aniga labada waddan ee European ee waxaan ku bartay si fiican ani ardayna aan ka noqday Holland iyo Ingiriiska waxaad arkaysaa hadda Ingiriiska oo kale waxaad arkaysaa ardayga year 11 GCSE ma dhacaayo cunuga laakiin maadooyinkii kuma wada barmoosin cunugu wuxuu keenaya 10 maaduu ee keenaya cunugna 5 maaduu ee keenaya cunug BCC suu keenaya laakiin kalaaskaas kuma soo noqonayo hadduu u sii gudbaya A leveliska haddana wuxuu la xiriirayaa jaamacadii waxaan leeyahay six formskii iyo collegeadii A levelka dhiibay maadadu ku fiican yahaa la fiirini ma vocationalka xataa waa wax naga maqan waa wax adduunka horumarka uu isku dhaafay oo soomaalidana vocationalka ceeb ay u taqaano waxaa la fiirinayaa vocational muu ku fiican yahay oo iyo mise wuxuu ku fiican yahay inuu imtixaanaad galo waa tawjiiha loo kala sameynay A levelska markaad ka baxdid it is up to the university jaamacada waxay kugu xujeynaysaa 3 haddaad haysanay ma ku qaadanayo jaamacadu waxay ku ogoshay 3 haddaad haysatid jaamacadu waxay ogoshay shahaadooyinkan way kala gedisan yihiin international baccalaureate maad wadataa A level maad wadataa higher Scottish maad wadataa jaamacadaha qiimeynta samayna macnaha waxaa xoog la saaray institutionskaas waxa naga maqan oo aan is leeyahay annaga institutionskaas oo saas xoog u leh oo qiimeynaya ardaygii oo hagaya ardaygii oo meeshuu ku fiican yahay meeshuu ka meel keeni kara qof wax ku xun ma jiro Soomaaliya cunugaas kaas damiin way kaas waxaan barnay wax damiin la dhaha ma jiro qofka waxaanuuse ku fiicneen waxaasuu ku fiican yahay so qof walba oo bulshadaas ka mid ah meesha human capitalka laga soo saarayo qof kasta oo bulshada ka mid ah waa inuu noqdaa xubin wax ku ool ah waa la maalgelinayaa xataa waxaa jira special needs qofka hadduu yahay waxaa loo sameeya education oo la jaan qaadaysa dadka special needska
special needs waxay noqon karaan wax jirka ama qofkeen dhoolu ahaan kara dhagoolu ahaan kara maya waxay noqon karaan wax dabeecadda iyo wax la saabsan adi whatever kind ay noqoto ilmaha jiro aan aqrin karin laakiin dhageysad wax ku baran kara ama dyslexic ama waxaa loo habeynay bulshada siduu wax ugu soo kordhin lahaa hab waxbarasho oo asaga u qalanta oo asaga uu fahmi kara qof liita ma jiro qof damiin ahna ma jiro qof aan wax baran karinna ma jiro laakiin wuxuu dhiibin aqoonta way kala duwan tahay aqoonta keliya ma aha hal qayb oo la yaqaano oo macnaha in qof kasta oo bulshada ka mid ah waxbuu baran karaa ee wuusan helin waxbuu ka meel keeni karaa ee wuusan helin waa meesha aan uga soo socdo waddamadan aan balahaynba khayraad shidaalba maleh beerba maleh bar xoolaad maleh waxaad ii sheegaysaan ayka adduunka ugu sarreeya maxay ku dadaaleen marka dadkoodaas bay maalgeliyeen dadkiiba waxay ka soo saareen macnaha markii dadkii waxay ka soo saareen ninka caag yar intuu ku qaado wax uu ku sameeyeyba $10,000 kaaga gadi kara ama $1,000 kaaga gadi kara marka taasna waxay ku tusaysaa qofkii sidii loo maalgeliyey wixii ka soo baxay waxay ku tusaysaa waddankii heerka uu gaaray aniga waxaan joogi jiray Holland waxna waan ku bartay oo maxay ahayd waana ka shaqeeyey waxaan arkay caruurna waa ii dhigan macnaha systemka waxbarashada waxaan u fahmayaa postgraduate-kii anigaa arkay ilmahaygiina hoos ay kaga soo jireen wixii systemka dhan waddanka waan u jeedaa meesha uu u socdo Holland dhul weyn ma qabto Google ku dhufa maapka Europe la soo baxay waa dhibic waa meel yar meeshaas yar badan la duugay iyo waxaas waa ayaday u badanta saas ay tahay caalamka cuntada la cuno oo la dhoofiyo la export gareeyo Holland waa waddanka labaad ee adduunka oo food export gareeyo waxyar bahalku waa haystaan Google keliya hadda jawaab isoo siiya America umaleynaa number 1 Holland waa number 2 qudaar ha dhihin and fruits ha dhihin flowers ha dhihin waxay export garaysaa waxay ku horumartay systemka agriculture-ka bal badan la duugduugay kis yar qayb dadka degan yihiin qaybta la beeraya xataa annaga dhulka aan haysana maanta inta uu la egyahay Holland markii dadka sharciga ay u diidaysa Soomaalida yaa waxay qodobada ay soo qoran jireen waxa kamid ah waddankaaga intaas goor uu Holland ka weyn yahay maybe 20 times korka ma hayo macnaha waxaan kaaga wadaa waddanka saas u yar yaa inuu noqday adduunka dhan cunto inuu u dhoofiyo number 2 inuu adduunka ka galay cunto dhoofis annagana abaar iyo baahi Suudaan bal ka waran Soomaaliya bal ka waran dhulkeena intuu leekay wabiyada maxaa keenay maskaxdii human capitalkii aan u soo noqono dadkiiba wax la baray waxay keeneen tatawur system agriculture cajiib ah irrigation systemka Holland wax biyo yar oo qiyaas ah yaa waxaa lagu waraabinay beera barnaamijyaha laga sameeyey hadhowtii haddaad rabtaan waad heli kartaan haddaad gashaan Google-ka biyahaas yar oo aan xataa biyo badan ahayn iyo dhul yar baa caqli iyo maskax iyo aqoon iyo skills la geliyey waxay soo saareen wax soo saarka caalamka dhan ay u dhoofinaysa inay Holland taas yar oo dhibicda ah adduunka oo export garaysa waxa soo cunta ah iskama imaanin anaga ka dhul weyn wabiyaalan qabnaa marna waynoo fatahaan marna abaaraan ugu dhacdo maxaa keenay waxaa keenay aqoontii skillskiya keentay Holland inay heerkaas gaarto inta hadhowtii kole istiraaxay waxban su'aalahan idiin soo celin doono waxaan idiin siinay an assignment si Google gareeya Holland exportationka ay samaysa ay agriculture-ka heerka ay ka gaartay waxaa kaloo fiirisaan lo'da Holland tiradeeda meeqa way adduunkana meeqa caana iyo meeqa cheese farmaajo
ay u dhoofisaa sii fiiriya li'anno qofkii beerta ayada isma abuurin waxaan faraha badan ayada isma soo saarin qofkiyaa lagu dadaalay qofkiyaa maskaxdiisa culuum la geliyey qofkii wax la baray yaa wuxuu la yimid hab casri ah technology war dhulkan oo gebigiisaba intaas mitir ah waxaan rabaa inaan ka soo saaro intaas oo misaga ah ama yaanya ah ama whatever maskaxdii wax la baray oo agriculturekii iyo qalabkii iyo wixiya waxay soo saartay biyo yar iyo dhul yar waxaasoo wax inay ka soo saari karto waa example markii loo imaado waxaan kale dhulka hoostiisa annaga waddankeena oo kale annaga waddankeena dhulka hoostiisa waxa ku jira maba la tirin karo mana ogi inay nicmo tahay inay niqmo tahay inay faa'iido tahay inay dhib tahay because damaca xataa badan adoo xataa waxaaga aqoonin si aad u maaraysa ama aad u maamusha ama si aad ola baxda ama aad u difaacda in saas indhaha adduunka la isuma naxa maanta haddaad wax aqoonin waa lagaa faa'iidaysanayaa marka waxaan ka wadaa sidee aqoon waddan u dhistaa baan weli daba socdaa asalkaba waxa u ah saldhigga wax kasta oo la qabanayo waa aqoontaas oo qofkii bini'aadanka ahaa markii lagu qalabeeyey education iyo skills waxaan arkay ingiriiskana waddamadii aan wax ka bartu ka mid ahaa annaga waxaan naqaanay traditionally jaamacadaad ka baxay waa takhasusay whatever shaqad gashay way dhammaatay sheekada waxaan arkay dad waxaan isla imaanaynaa waxaa dhici karta modulkaas basaa la isla dhiganaya dadkaas dhan modulkaasaa la xiisaynhayaa waxaa imaanaya nin surgeon ah waxaa imaanaya ku clinic u furanta laakiin qof kasta modulkaasuu xiisaynaya waxbarashadii waxaa way continuous waxaa jira wax la dhaho continuous oo progress oo qofka inuu wax sii barta wuxuu leeyahay takhtaraan ahay GP-yaan ahay meeshaasaan joogaa laakiin arrintaas ayaan xiisaynayaa maadadaasuu soo dalbanaya jaamacad hebelaa dhiibays institute hebelaa dhiibay ku kala meel kaluu ka yimid classroomad isugu imaanaysaan kulligiin waa different background laakiin qof kasta waxbaa wado waxbarashada ma dhammaato markaad adduunka ad fiiriso hata sida maalin walba wax casri ahaa soo baxay wixii hore waxbaa beddelaya marka waxaan hadda aaminsanahay oo aan waqti badan inaan gelino nooga baahnayn in aasaaska ay tahay aqoon sidii waddanka lagu dhisi lahaa marka aan u soo galno policieska iyo kayfiyaadka ilaa midii waan isla ogolaanay idinkaa markhaati ka noqday laba qof idinka ka mid ah hadlay waxaad soo qaadateen singapore mustanqacay ahayd mustanqac waxba ma ahayn singapore faro mustanqac meeshaasay gaartay ninkii ahaa Lee Kuan Yew saas camal ninkaas xilligaas laakiin waa xilli individual wax tari kara maanta individual wax ma tari kara maanta waa xilli institutions laakiin xilligiisii lixdamaadkii waxaad weli xilli individualiska ay wax badan samayn karaan ninkaas waa legasiga Singapore ninka loo celiyay wuxuuna ku focus gareeyay waxaan dhageystay khudbooyin badan asaga xataa hadda ka hor waxaan fiirsaday barnaamij oo waraysi laga qaaday wuxuu ku focus gareeyay wuu fiiriyay dhul weyn xataa ma haystaan waa jasiiradaas yarta khayraad ma leh waxba ma leh waxa ayaga ka maqan dadkaas inuu geliyo waad aragteen lixdamaadkii caalamka markii la fiiriyay budgetka caalamka lagu bixiyay waxbarashada Singapore ugu sarreysay budgetkii ugu badnaa yaa la gelay waxbarashada li'anna wuxuu arkay meeshan mustanqaca ah ama waa lagu kala tegi maba ahaba waddanba ma aha ama waa inuu wax ka dhigaa budgetkii ugu badnaa yaa la geliyey adduunkan waa ka roonaa training badan macallimiintii la soo saaray
marka waxaan ka wadaa taas hadda isla waafaqnay laakiin annaga sidee okay holanaan aragnay dhibicdaas yarta ah adduunka meesha ay ka marayso waxaasoo dhan inay humanka ku keentay kabitaalkeedii oo dadkii oo wax la baray marka haddaan taas muwaafaqan ka nahay laakiin annaga arday badan oo Soomaali ah hadda idinka kaliya iyo organizationkiina inta ku jirta iyo inta Soomaaliya wax ku baratay iyo inta waliba aabayaashiin iyo ahalkiin iyo hooyayaashiin iyo badana wax idin baray wax scholarship soo hela waa wax aad u yar oo annaga waageenni dawladda jirto wax ku barayso oo system jire waxaan aaminsanahay ardayda hadda wax baranaysa badana juhdi khaas ah yaa wax ku barteen laakiin wax waa la barto Soomaali badana wax barato oo meel walbana joogto afafna waa la barto afaf badana wax lagu bartay marka laakiin waxaas saas u kala firirsan iyo dadkaas wax barteen iyo Soomaalida Marshaq iyo Maqribka kala joogto qaar Yurub joogan qaar North America joogan qaar Asia joogan qaar Afrika joogan sidee juhdigoodaas iyo tacliintoodii aqoontooda iyo xirfadahooda iyo waaya aragnimadooda sidee looga faa'iideyn karaa in Soomaaliya wax looga qabto lubbiga waa kaas muhiimka ama aqoon wax ma taray waa la isla ogolaaday islama diidana haddaan marka isla fiirino waxbaa ka horeeya horta adduunkii hore dada qof hebel yaa la dhihi jiray hebelaa legacy ka tigi jiray hadda ninkan oo Singaporeeska ah meritocracy in dadka merit lagu qaato aqoonta la tixgeliyo asaga shaqsi ah legacy ku tagay maanta waxaan maraynaa 2020 maanta ma aha waqti oo individual wax uu qaban karo maanta waa xilliga institutions waa xilli institutions u fiirso adduunka dhan institutions ka shaqeeya ana kan ilaa xataa qof aan daba socon dawladda xataa markay tahay dawladaha waxaad arkaysaa institutions la dhisanayaa waxaad arkaysaa prime minister aba wadamo iyo madaxweyne aan joogino inta hoosana laakiin institutions shaqeynaya wax ma halaabayaan marka tii aan u soo noqdo aqoon waxaa horta loo baahan yahay ardadiinaas oo caalamka ku firirsan waa aqoon diyaar ah oo dawladda hadda xoogna kagama bixin lacag badan kagama bixin allahuma dhowr qof oo scholarship looga helay dawlada kale marka sida ugu fiican aniga ii muuqato hadda waa bilow fiican waxaan aad wadaan bal idinka asan organization oo dhalinyarada aad tihiin bal isku daya xataa waxa jira Europe iyo meelahaas iyo takhasus yaa bartay engineering yaa bartay maxay ahayd ya art bartay ya science bartay isfiiriya markaan wax barasho ka hadlayna Soomaaliya xataa anaka waxa naga maqan maanta hadduu AC ka jaba ama furniture ka jaba wad la rafaadi Kenya dad laga keenay technician oo xataa AC-gi furniture xataa ma samaysan karna si kasta institutions ka naga burburay waxaa keenay institutionski oo naga burburay oo ma haysano leveladii kala duwana ee xirfadlihii mid levelka ahaa oo kale boosku ka baxay xataa jaamacadihii la furay anoo ku amaanaya doorka ay qaateen private sectorka jaamacadihii ay fureen laakiin mid level xirfadlihii mid levelka ahaa waa la iloobay shaqooyin badanna xirfadlahaasay ku socotay horta sidii looga faa'iideyn lahaa idinka dhalinyarada idin la midka ah annaga dadkii waaweynaa hadda dadka bedelay waa already idinkaa bedesheen dadkii bedelay ma aha waa xaadir ma aha mustaqbal waxaa loo baahan yahay marka dhowr qodob policy inuu jiro waxa haddii la dhaho policy education policy qodobkaas ardayda Soomaaliyeed ee dibadaha dalka wax ku barta Pakistan ha noqoto
ingiriiska ha noqoto ay waddan ha noqoto loo dejiyo policy maxaan ka leenahay oo siyaasad ah waa aqoon diyaarsan annakaa u baahan in loo sameeyo ila dhaqaale in loo sameeyo sidii loo keeni xataa maktab oo ardaydaas isku xiro sidii loo keeni lahaa ama waddanka loo keeni lahaa meeshay wax ka qaban lahaayeen sidii waan dareemi karaa waddanka weli waa bilow laakiin macnaha hadda waa maskaxdan shiilaynaa idinkana ila shiila maskaxda waa idin weydiin doonaa idinka xataa aaraadiina ina policy uu jiro oo looga talagalay quwaddan faraha xoogga weyn ee aqoonyahanka ah ee kumi itaana kaaga bixin ee meel walba taalla sidii looga faa'iidaysan lahaa horta taas waa in laga leeyahay policy midda labaad takhasusaadka soomaaliya wax badanay u baahan tahay maanta wax aynu u baahnayn lama arko laakiin haddana in la fiiriyo waxaasaa naga maqan waxaasaan u baahannahay waxaas ha la soo barto howlahaasna aad in loo fiiriyo arrin kale oo aniga aan rabay levelkaasna waxaa wax ka qaban kara arrinaa jirta oo ka socoto Soomaaliya national versus international kolay diaspora lagu kacsan yahayna waad aragteen wax kale maaha waxa loogu kacsan yahayna wax kale ma aha aniga waxaan xaadir u ahaa aan joogay Muqdisho waxaa suurtagal ah si fiican ii dhageysta policy level kaygana wax kama qaban kara level wasiir taasoo kale level madaxweyne level prime minister ka deal garayn kara waxaa jiro siyaasada oo مثلا IOM waa organization kaas wuxuu u qaabilsan yahay migration international waxaas organization for migration way laakiin Soomaaliya policygoodii wuxuu ahaa wadamada lacagta ku shiba IOM-ta dadkii ayaka dadkooda ah مثلا Soomaali Hollandees ah aniga camal Soomaali British ah Soomaali Finnish ah Soomaali Dutch ah Soomaaliyaashaas oo baasaboorkaas wataan oo aan ahayn qofka Soomaaliga ah oo baasaboorka Soomaaliga ah aan ahayn bay waxay u ogol yihiin fursad inuu waddanka ku soo noqdo shaqo ka qabto mushaar fiican oo macquul ahna la siini waxaa suurtagal ah qof xamar jaamacad kaga baxay inuu xataa aqoon aad u badan leeyahay ama Pakistan ka yimid baasaboor Soomaali wato fursadaasna ma la siinaayo oo kan waddankiisii yaa donor ah ayom lacag ku shubaa marka taas ani waagii waan arkay wax levelkayga qof ahna wax kama qaban karo si lagu soo jiito soo waxaa imaaday diaspora badan oo ku imaaday contract IOM-na qofkan waa Hollandees waddankiisa Hollanda ku shubtaa lacagta meesha ama Finland aad dad badan oo arday badan oo Finland ka imaadeen wax ku soo barteen lacagta dawladdaasa bixisaa through IOM iyo Sweden iyo kulli ardaygii baasaboor Soomaaliga watay oo si fiican wax u soo bartay markuu imaado fursad ma leh uu niyad jabaya ilaa qofka mushaar uu ku shaqeeyo oo rabaa taasoo kale insha Allah waxyaabaha waxay priority u tahay doorashaas soo socoto in qofka madaxweyne noqon doono prime minister noqon doono hoggaanka waddankan qaban doono aan rabno arrimaha inuu ka loobi garay hadhowtii saastu office-ka u tago inuu koo waxbarashada dhahaa budgetka waxbarashada loogu sida Malaysia sida Singapore oo kale ay samaysay iyo hay-adaha UN oo badana international dhahaaya de waa Soomaali waxaana suurtagal ah xataa midka xamar jooga inuu aqoon badan leeyahay ama ha ka imaado India Malaysia ka imaado oo baasaboorka aan haysanin arrintaas waxay u baahan tahay campaign ah insha Allah in aniga iyo idinka iyo qof kasta wax ka geli karo in dadka lagu soo baraarujiyo iyo xildhibaano iyo qof kasta lagu soo baraarujiyo ardayga Soomaaliga ah
باكستان wax ku soo bartay Malaysia wax ku soo bartay Turkey wax ku soo bartay baasaboor ajnabi ma haysto oo European ah oo donor country baasaboorkeeda ma haysto maadaama aqoontii merit in dadka la fiiriyo lagu qiimeeyaa aqoontiisa marka dawladda ayadaa awood leh qoladii lala xaajoonaya oo dadka noocaas ardada noocaas ah sida loo soo jiiday waddanka ku soo noqdaan qoondo oo kale in loo helo because qofka hadan waxba loo haynin imaw xamar baagamuundo ku noqo ma awoodo wasiirkiina wax uu ku qaban kara male laano hay-adahan waxaasay lacag ku bixinayaan so aniga dadkaas wax bartay sida lagu soo celiyo wax waddanka wax ku geliyaan siyaasad in laga yeesho oo siyaasaddaas sidii looga yeelan lahaana qof walba uu u istaagay qof kasta oo Soomaali ah oo hadli kara codkiisa meel gaari kara idinka xataa social media xataa ku soo qora in aqoon badan iyo cilmi badan baa daadsan waddankiina waa ka aradan yahay laakiin waxaa loo baahan yahay wax kasta waxay u baahan yihiin budget waddankeena ma laha dhaqaale nasiib darrada waddankeena wuxuusan lahayn ilaa hadda waxaan ku noolnahay wax donors ay keeneen maanta dhib yar hadduu dhaca cirkaan indhaha u taagayna xataa waxaad u malaysaa inay naga tagtay beledweyne hadda webiga sanad kasta wuu fatahayaa sanad kasta qaaraana la aruurinayaa dad aqoon-yahana oo waxaan diraaseeyo iyo lacagtan la qaaraamay webiga maxaa laga qaban karaa xataa weli inaanan dhihi karin aan taaganahay waxaan ka wadaa aqoontaas oo meel walba ku firiirsan ee Soomaaliyeed waan u baahannahay waa xilliga aan ugu baahi badannahay ayaan joognaa laakiin waxaan u baahannahay inaan policies aan yeelanno oo ah lagu dhiirigeliyo xukuumaddii markaas joogto in ay jiraan maxaan ka qaban karnaa ardada Soomaaliyeed ee dibadaha wax ku barata ee aqoontooda aan u baahannahay oo kale ma loo samayn karaa dawladda waxaan arkay u sameeyeen xafiiska madaxweynaha maktab hoostiisa ka farcama oo la leeyahay waddankaas diasporadiisa Jarmal joogta diasporadiisa xagga joogta maktab loo sameeyey marka kulley waxbaan isla taataabanay haddana waxaan rabaa waxaan u malayn wax badan hadlay waqtigana waa gabaabsi idinka ra'yigiina inaan dhagaysto waxaynaad igu soo kordhisaan yaan rabaa idinkaan rabaa inaan haddana idin maqlo wax yar taadsan policy-gii aan ku soo ceelin lahaa fundingkii leanno haddaba Soomaaliya hay-adaa wax siiya hay-ad UNDP whichever in lagala heshiiyo ama dowladahana kaalmeeyo lagala heshiiyo dowladaha lacagna siiya haddaba intii annaga aan waxayna ka soo baxsanayn in la dhaho aniga waxaan rabaa intaas oo aqoon-yahan inay ii soo noqoto mishaarkoodana intaas iyo intaas aqoon-yahanadii loo sameey department u qaabilsan sidii loo soo celin lahaa dadkaas iyo wixii ay soo barteen macnaha department ka shaqeeya cuquusha anaga cuquusha way naga hajiraysaa adduunka cuquusha lacag ay joogtaa waxaa lagu leeyahay Jarmalka Syria aad u qaabilay laakiin waa bilcagsi yaqiinta Jarmal waxaa u soo galay dad wada trained ah kumitaana oga bixin yaa u soo galay hal sanay luqad barteen markaasaa waa wada jaraaxiin isbitaaladii waa wada injineero waa wada dhakhaatiirta ilkaha dadkaasoo dhanna Jarmal shilin kagama bixin khalaas luqadii ay barteen systemkii waddanka sanad 6 bilood wuxuu iska helay shaqaalo mujeda waa la rabaa hadda adduunka waa la joojiyaa lagu dhaha visa iyo lama ogolo qaxooti laakiin dadka aqoon-yahanka ah viisooyina la siinayaa waa lagaa soo wadanayaa adduunka cuquushu soo raranayaa annagana cuquusha naga haajiraysaa so policy-gii wiilka uu sheegay waxaan soo jeedin lahaa codkeena dhan inaan isku darno department u qaabilsan cuquushaas sidii loo soo celin lahaa aqoontaas iyo skillskaas sidii loo soo celin lahaa qofna inuu xamar iyo Hargeysa ku baagamuundayo uma soo noqonayo meeshuu ka shaqayn lahaa wuxuu soo bartay inuu ku shaqeeyo hay-ada in lagala tashto taas in
cod dheer iyo cod gaaban loogu sheego madaxda joogta iyo kuwa imaan doonta waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego madaxweyne iyo prime minister iyo dadkaas sarsare ha lala hadlo oo codka si kasta macnaha qofka shakhsi uma tegi kartid lama hadli kartid laakiin meel kasta codadka loo marin karaa qofkii ilaahay Soomaaliya madaxweyne uga dhigo in la dhaho annaga hadaana shacabka Soomaaliyeed waxbarashadu waxay noo tahay priority لأنه system education كسوماليا وحبها renovation وارم عن طريق ابن شداد أنا قابا شعر هذه إلا هذا حفظ السنة أن كبي حجري هذه حفظ يجي ولا لو جري جامعة هني ولا مقام الجرام بركيلو أتسيني مريضك ولا لو هرتا أفعربي كان يقول بدن إلهي مقدرت أفعره وحكومة سو برانين أفافك حتى عن جامعة كلك تيمها مركا وحنكوذا إن محيط بوليسيغاس سيدي لو دجين لا بوليسي دولد بعد دجيسا سيدي لو دجين لا عد كان إن سوقينو لا هادلو مدحوينها إيمان دونا أما هدي دولدان لو ديري هو إيفر إن لا دهو ور أنك education مهم نوع والله وحن آمسانا لعكت عيدا ماذا لغو بحين هاي هذا ودنك إن نبض لكينا عيدا ما أجنبي عيدا ما سومالي با انت قرش لغو بحي نبض مسكحة دادكي كأبورنتا دقالكنا انتو سنقولك إيمانا مسكحة دادكو كأبورنا نبض إيو نبض لآن ماشاس إي كأبورنتا قفك إن ماشاس وحلوغو الشبا وإن education policy في عن oo dadka dibahana lagu keeno kuwa dalkana manhaj kana qasab ma aha wixii ku yaalay boqolaal sano ka hor in hadda manhaj ahaado manhajka maxaan ka rabaa aniga manhajka adduunka wuxuu ka siman yahay waxa sayniska iyo literacy iyo numeracy hadda UK ma joogna saddexdaas maado waa common waxa common ah science iyo literacy oo ayaga maadaama ingiriis ay af ingiriiska iyo numeracy oo xisaabta لكن subjects ككلا common معها قيب والبا فيل دي لا عنق مال وسعنين لبراي عنق وبسعن عنق history ما بوسعدين وبرت حتى وحارك بل وحارك سكولات Islamic schools أو إنجليز كويال أو history دقاي دكسي سارة أو علمي مركان ويدي لأنه دكسي كسارة دولة history لقد دقا معها المهم وحب دكتام أنا وحان دكتو يقول قزودة تبوك إيو وحو يجيشك قادسي ومعلن كاسي منهج كاس إسلامي سكولك وحي ربع عنو إسلامي هيستوري إنو بارا معنى وح كومن هو كستان يرى ساينس كا منهجك محن أقدن له قف نوعي هن ربع إنا صار قف سومالي ما هينا مايا citizenship حتى مل حتى قفك ودانك أنك واقعاً يرين وحن ليا بنشدان ودانوهم قو citizenship أنا لبريجر قف سومالية مسلمة دينتا أنك كورتمين compromise مقشو إسلام مركز أقويانا بان ربا إنا نصوصار لكن منهج وحايدة جي قول هبلو دانتا هذا متقان مركا وحن كولا مقرب كيا تاغن إن أي نقطة education كا بوليسياشا inay noqoto iyo planning loo sameeyo waxbarashada planning dheer institutionka in la dhiso wasiira imaanadan laga tala baxo institution la dhiso inaan ka gorgortano cod dheer iyo cod gaaban aan ku sheegno aan dhahno waxaan rabnaa institutions noocaas ah waxaan rabnaa laga naxa wadanka hadii educationka lagu investigate dagaalada way joogsanayaan inaan arrimahaas campaign nooga baahan tahay arinta kala investment ya lagu sameeyo humanki warun anaka dadkeena wax lagu investigate male dadkii horaaba roona oo anaga waageyni school free aan dhigan jiray hadda xataa wixii male laakiin taas naftirkeeda burburkaana keenay inaan iyada naftirkeeda aan u olayna sidii waxa la keeni karaa qorshooyin okay sida hadda caafimaadka oo kale health insurance oo kale hadda waxa laga hadlayaa universal health coverage adduunka inuu gaaro education حتى universal at least primary school in investment لكن the proper investment لأنه هدي منهج صح أتهيسني هدي طريقة وحلو برايا صح أينهن ولا حفظ إسكي وسعوناي معلنك ترينين صح وسنقادني
teachers training institutes casri inaan helno qaybay ka tahay macalinka in loo tababaray jiilkan cusub oo ka gedisan jiilkii wax la xifdisiin jiray maqribkii waaye waxaan rabi lahaa insha Allah marar kale isu soo noqonaynaa su'aalahana hala soo qoro aniga Facebook aad uma isticmaali laakiin Twitterka xataa naftirkiisa marmaraan soo galaa Twitterkaas iyo waan ark dhalinyarta idinka horta followerskayga meesha aan ku jiraan Twitterka followerkeen ku keenay ana igu dhacay mana noqonin weli insha Allah markaan ka laabto Ingiriiska oo Nairobi ku laabto waan sharax xiriiri doonaa xilqooyin badan inaan idinka wax badan idin dhageystaan rabaa nakasta xilqa aniga dhageysta inaan noqdaan rabaa insha Allah waana ka xumay su'aalaha inaan idin dhameyn karin aad iyo aadaan idin jeclahay idinka ah حاضر كي مستقبلك ودنك وإذنك ما إن شاء الله.